magacayga waa Faama Cabdirasaaq Cabdi waan ku dhawahay barnaamijka Faador ee idaacadda Mustaqbal looga hadlayo xanuunka isku furanka haweenka ee xilliga foosha. marka hore xanuunka isku furanka ee xilliga foosha ee ku dhaca haweenka waa xanuun ama dhaawac ku dhaca haweenka xilliga foosha ama marka ay dhalayaan. xanuunkaas waxa uu sababaa in ay isku furmaan xubnaha taranka ee haweenka kuwaas oo marka horeeta isku dhagnaa ama ishaystay in isku furmaan. waxyaabo badan waxaa kamid ah hooyada oo foosha ku dheeraata oo loo yaqaan Borlanger labor ama obstetric labor in hooyada foosha ku adkaato oo kale sababa. dumarka ugu badan oo ku dhacana waxaa kamid ah haweenka aad ku daad yar ee ku guursada early age ama time hore guursada 15 wixii ka yar guursada uu badan yahay xanuunkaas waa wax ku soo batay hadda wadamada saboolka ah ama wadamada hadda soo koraya sida wadamada Geeska Afrika ama Soomaaliya ugu badan yahay. meelaha ugu badan waxaa kamid ah meelaha aan haysanin maxaa la jiray adeeg caafimaad oo dhameystiran aan haysanin oo ugu badan yahay. inkastoo hadda la daaweeyay Muqdisho isbitaalo badan hay'ado badan ay imaadeen oo la daaweeyay haddana waxaan u maleysaa in wali uu sii taagan yahay xanuunkii oo la helin xiribtir ama sidii la rabay uusan u dhamaanin wali uu sii jiro. waxyaabaha keena ama waxyaabaha sababa waxyaabaha ugu badan waxaa mid ah soo sheegay Borlanger labor in hooyada foosha ku dheeraato ay waqti time badan ay qaadato sida hooyooyinka baadiyaha jooga ama meelaha aan caafimaadka aan lahayn inay waqti badan fooshtaan ama aysan heleen facility ama transport meel ay wax ay ku gaaraan xarunta caafimaadka ay ku tagaan 8 saacadood ka badan ay ku qaato ama 2 bari 3 bari oo kale hooyada inay iska foolinayso foosheeda ay zaad u dheeraato ilaa ay ka gaarto inay hooyadaas ay dhimato ama cunug uu ku dhaxmeedo ama ay isku rafaadaan ay dhahaan meel xarun ee caafimaad ay tagi karin aysan jirin inay guryahood iska joogaan ay ku fooshtaan ay ku fool dhameystaan kadibna ay isku furmaan. waxyaabo kale oo fudud waxa waaye gabdhaha yar yar haweenka aad ku daada yar oo iyagana time hore loo guuriyay iyadoo haddana u badan tahay miyiga ay u badan tahay inkastoo magaalada hadda iyo tuulooyinkan ayagana ay ku soo bateen early age-ka haweenka aad u daada yar oo time hore oo guursada waxaan u badan dadka maxaa la jiray dhaqaalahooda aad ugu hooseeya ayagoon gabdhaha awal aysan haysanin nutrition ku filan ama nafaqo ku filan ama jirkeeda si fiican u korin. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jirkan waxa uu ugu talagalay time ama waqti loogu talagalay gabadha ayadoo korinsho ku socdo physical ahaan wali aan jirkeeda korin lafiheeda korinsho ku socdo aanan lagu daraaya ama ay guursanaysaa waxay galaysaa marxalad kale cunug ay qaadaysaa uur ay qaadaysaa kama bixi karto jirkeeda wali si fiican uma uusan korin markii cunug qaado hadhow waxa ku adkaanaysa inay dhasho waayo miskaheedii si fiican uma korin lafiheedii ma korin cunugay hadhow kama soo bixi kar fooshi oo ku adkaanaysaa. sidaas awgeed haddii aysan helin meel caafimaad ama umaliso dhameystiran ama goob caafimaad aysan helin ama waqti hore la ogaanin hooyada inay dhali karin miskaheeda uu yaryahay cunuga uu ka soo bixi karin ama la qalin ama la dhihin ay helin waa isku furmaysaa. waxyaa ugu badan waxa keena haweenka daad yar iyo ilmaha oo foosh ku dhaca. midda kale waxa waaye oo saddexaad cunuga madaxiisa oo cadaadis badan saara xubinta taranka ee xubnaha taranka ee hooyada oo cadaadis badan saaro oo bushgareeyo sida bladderkii iyo kaadi haystii xubnihii kale oo muhiimka ah oo taranka hooyada inuu cunuga madaxiisa cadaadis badan uu saaro markuu waqti badan hooyada ay feelinayso cunuga cadaadis badan uu ku hayo meesha inay hooyo xubnahaas ay heli waayaan dhiig ku filan ama oxygen ku filan ay heli waayaan markaas kadib waxa dhacaysa inay dilaacaan ama ay maxaa la jiray ay jeexmaan sidaas oo cunugan ama cunuga madaxiisa uu weyn yahay oo kale cunuga hadii uu weyn yahay ama cunuga haduu qafka ama marinka uu ku soo galo si qaldan haduu ku soo galo iyadana way sababi kartaa inay hooyada isku furanto iyadaan ogaanay waqti horeeto ama time horeeto aan loo sameeynin preparation loo sameeyo. hooyada hadii ay weyso antenatal care wax la dhaha ama intii uurka ay leedahay xaaladda caafimaad wax la socda ama xarun caafimaad ee la xiriirta hadii ay weyso haddii markii ay foosha ay tahay gurigeeda iskaga foolato ama ay miyiga ay joogto oo weyso xarun caafimaad aysan bahaysan aad iyo aad ay ugu fududahay inuu ku dhaco xanuunka isku furanka ama ay isku furanto aad ugu nugushay. ama haddii waxa laga wacyigeliyo oo loo sheegaa xilliga uurka ay leeyihiin inay goob caafimaad ku dhalaan inay time hore imaadaan inay maxaa la jiray isbitaalada iyo goobaha caafimaadka ay aad ula socdaan
naftooda la tacaalaan loo sheegaa lagu wacyigeliyaa haddii hooyada meel caafimaad ayba tagin gurigeeda ay iska joogtay markii gurigeeda la gaarin gurigeeda ku dhalaya is leedahay gurigeeda isku joogay ku foolanay sidii ugu fududahay inay ku dhaca xanuunka gabdhaha aadka u yar hadda kiisaska ugu badan oo la arka waxa way haweenka guursaday waqti hore ma lagu daro ama ayada ha guursato waxa ugu badan ugu dhacana waa ayaga sababtana waxay tahay saan hor u soo sheegay jirkooda physical ahaan wali ma uusan qaangaar idoo qaangaar ku socda ee uur qaaday miskaheedii ma korin lafaheedii maxaa la xubnay taranka si fiican uma aysan weynaanin sidaas li'aligeed ay keenaysa in cunuga marinka uu soo mari waayo fistula ay noqoto ama lagu qala ama foosha ay ku rafaato ay ku dhibtooto saameynta ugu badan ay ku leeyihiin waxa waaye hadda kiisaska ugu badan oo la arkaa waxa waaye haweenka da'da yar ku guursaday lagu arkaa inuu ku dhaco waxaan isla eeyahay aniga waxaa loo cirib tiri karaa inay helaan horta goob caafimaad laba inay helaan goob caafimaad markii ay helaan inay helaan dhaqaatiir ama inay helaan umuliso cilmigii leh oo dhammaystiran inay helaan waxa ugu muhiimsan waa inay helaan dadkaas goob caafimaad saddex waa inay helaan wacyigelin oo laga wacyigeliyo maadaama dad reer baadiye ay yihiin goobtii caafimaad markii ay helaan intay uurka leeyihiin iyo ka hor ama antenatal care waxa la yiraahdo inay laga wacyigeliyo inay goobtii caafimaad ka soo booqdaan guryahooda loogu tago ay imaadaan ay xaaladooda caafimaad lala socdo haweenada markii 9 bilood ilaa 8 bilood ay jirto la fiiriyo xubnaheeda taranka cunugeed inuu caado u dhali karto inaysan dhali karin waxaas oo dhan in loola socdo muhiimaddu waa inay helaan goob caafimaad ama meel ay ka helaan daryeel caafimaad oo dhammaystiran sida MCH-da hadda meelo badan magaalka banaankiisa MCH-da iyo aada loo geeyay laakiin hadda waxyaabo ugu badan dhibka haysta waxa waaye baadiyaha waxyaabo ugu badan hadda magaalka la keeno fistula waa baadiyaha laga keeno miyiga laga keeno baadiyaha waa laga yaabaa sababtana waxay tahay in hooyadan ay jilacdo xibinteeda taranka ama xubinta taranka hooyada inay jilacdo hooyada dhashayda ama hooyada ilmaha badan dhashay oo kale marka ilmo badan ay dhasho hooyadan ama 8 cunug 9 cunug 10 iyo wax kaba marka ay dhasho xubnaha taranka sida hore ma ahaanaan way jilcayaan sida oo kale marka ay jilcaan waa laga yaabaa hooyada inuu isku furan ku dhaco ama isku furanto adiga hadda waxyaabaha ugu badan oo lagu daaweeyo waxa kamid ah antibiyootiga ku la siiyaa kadib meeshaas in berber loo sameeyo oo dib loo talaa imadu weyn qalliin surgery inay martaa maya midda koowaad oo kale markii bilowga ay tahay fistulada koowaad hooyada markay ku dhacdo oo kale hadii meeshii la talo oo sida lagu celiyo inay space inay sameeysaa jaal spacing oo kale inay sameeysaa kadib meeshina loo talo yeesha dhakhtar fiican oo berber fiican loo sameeyo waa laga yaabaa inay meeshii sideedii ay noqoto laakiin haday mar labaad ay ku noqoto way adag tahay inay daawo kali wax u tarto surgery fiican ama dhakhtar fiican hesho qasbanta uurkeeda labaad oo kale hadaan ay dhakhtar fiican helin ama umuliso fiican aysan helin oo maadaama meeshan ay hore u jeexantay mar labaad hadana ay isku dayo in meeshan cadaadis fara badan la saaro ay caado u dhasho waa laga yaabaa inay ku dhacdo hadaan qalliin ama si kale cunug looga soo saarin dima ayagu caado u dhalan way dhacdaa inay mar labaad jeexantana way dhacdaa waa mahadsantihiin marka koowaad idinka idin mahadcelinaya adeecada mustaqbal iyo barnaamijkan Fayrdhowr ay u soo dhaweyseen aad iyo aad mahadsantihiin bulshada waxa ugu mahadcelinayaa gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed in ay maxalli jir ay tagaan goobaha caafimaadka inkastoo hadda dadkii ay soo fiicnaanayaan ay goobaha caafimaadka aad u imaanayaan MCH-dii talada qaadanayaan talaalka qaadanayaan hooyooyinka uurka leh xaaladooda aad ula soconayaan haddana waxa jira kuwa madaxda gurigooda iska jooga waxa kula talinahay inay imaadaan goobaha caafimaadka ee la socdaan xaaladooda caafimaad laga warqabo ilaa ay ka dhalayso ee xaaladooda caafimaad ay ula socoto kuwa kaleeta ee qaba xanuunkan fistulada ku dhacay ama uu saameeyay oo haddana waxaa jira aan daawo doonanin ee guryahooda iska fadhiya oo xishoonayo ama bulshada midabta koorayso bulshada way midabta koortaa haddii ay bulshada midabta koortaan ayagana way xishoodan guryahooda iska fariistaan waxaan leeyahay xishoonina dhaqaatiirta la xiriira hadda hay'adaha imaadaan Muqdisho maxaa jira kii isbitaalada waaweyn oo lagu daaweeyo oo loo sameeyo maxaa la jira talooyin caafimaad oo fiican oo hooyada lagu daaweeyaa jira inay tagaan goobahaas caafimaad oo xaaladooda hore dib loogu soo celiyo aysan nolosha ka quusanin xanuunka badanaa haweenka marka uu ku dhaca nolosha way ka quustaan waa qof ugu soo horeeyo oo waxa waaye midabta kooraya waa ninkeeda oo macna ama furaaya ama ka tagaaya maadaama haweenka aysan kaada cishin karin saxarada aysan cishin karin urkaasi wax la aligeed ama waa la furaa iyadan waxay noqonaysaa depression ama psychological ahaan u xanuunsanay
waxaa laga yaabaa inay meel iska fariisato ama nolosha dhanba ay ka quusato waa jiraan boqolaal nolosha quusta guryaha iska fadhiyaan daawo raadsanaynin aan meel aadaynin kuwa kale ayagan isku tacaalawi jiraan marka waxaan leeyahay quusanina meel fariisanina isbitaalada taga isdaaweeya insha Allah ha ka xishoonina mahadsantihiin idinka mudan Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier